shay bas sorry calaamadan u diidan yahay designkiisa imaanayna drop down keena maadaama aysan waxba ku jirin calaamadaas yartaan furanaa kadibna waxaan leenahay edit items waxaan soo gashanaynaa dhowr item kan koowaad waxaan ka dhiganaynaa select kan labaad waxaan ka dhiganaynaa admin ama user admins waxaan leenahay admin iyo cashier admins ama user and sex of two informations this done our website ugu dambeyn waxaan u baahanahay inaan kusoo darsano label ee buttonska waxaan leenahay dot column dash medium dash saddex column arnaa update delete iyo save min saddex aan siinanaa min saddex ayaan siinanaa margin top waxaan kasoo skinaynaa to button meeshaan insoo dhig marka button sidee buttonka loo soo garayaa haddii aad meeshaan imaato aad bootstrapkaaga button suu u yaallaa meeshaan ka badan internetka wuxuu iska bicdaala never mind buttonkeena waxaan baxsanaynaa btn maybe safe haddii aad marka u horeyso fiiriso siduu u yaallo ma qurux badna pagekaaga refresh dheh designkii oo dhammaystirnaa lagu sameeyo buttonkaaga ma qurux badna soo maa button qurux badan si aa u dhigto isticmaal bootstrap button wuxuu leeyahay galaas loo yaqaano btn waxaan kusoo darsanaynaa css galaas loo yaqaano btn mujida btn haddii aan dhaho sorry wuu isbedeli doonaa muxuu noqon doonaa button yes weli ma qurux badna buttonkayga waxaan rabaa button inaan ka dhigo loo yaqaano success wuu kasii qurux badnaan doonaa markaas this is style button yaa ku siinaya waxaan bootstrapka ku siinaya waayahay waxaan ku darsanaynaa form dash control inuu maadaama saddex column u haysto saddexda column hala ekaado saddexdan column aan koobiyeynaynaa another button oo update iyo delete aan u baahanahay update and delete buttonkan waxaan baxsanaynaa btn update success maaha kan info and then kan waxaan ku qornaynaa save kan waxaan ku qornaynaa update kan waxaan ku qornaynaa delete kan maadaama info uu yahay kan wuxuu noqon doonaa danger it means gaduud oo noqon doonaa three buttons oo kala duwan ayaa meeshaan noola soo dhigi doonaa that's maxaa waaye formkeena hadda designkiina waa ka dhammaanay oo waa ka baxnay formkeyga designkiisi waa ka dhammaanayo waa ka baxnay waxaan rabnaa qaybta hoose inaan kusoo bandhigno informationka databaseka noo yaala informationka databaseka noo yaala inaan qaybta hoose kusoo bandhigno si aan ugu soo bandhigno waxaan haysanaa wax loo yaqaano grid view laakiin waxaan ka hormarinaynaa saving inaan samayn karno qofka ugu horreya inaan diiwaan geli karno si taas aan u sameyno waxaan imaanaynaa design buttonkaas eventigii si aa u generate gareyso double click aa ku siinay bas double click ayaa ku siinayna marka ugu horeysa waxaa u baahan tahay database connection hayso inaad isku xirto labadan software oo kala madax bannaan connectionkaaga xagga lagu samaystaa waxaa lagu sameeyaa meel loo yaqaano web.configuration web.configurationkaana ku samaysanayna si sahlan marka adigoo waddadan dheer marin si sahlan aan ku samaysanayna waxaad imaanaysaa isla meeshaan imaanaynaa waxaan kusoo darsanaynaa grid view and columnkan boxkaygan waa ka dhammaanaynaa waxaan leenahay dot dash header body meeshaan waxaan soo gashanaynaa waxa loo yaqaano data grid view ayaan soo gashanaynaa waxaan imaanaynaa qaybta data kadib waxaan soo qaadanaynaa grid view drag and drop grid viewgayga design uu leeyahay designkiisaan rabaa inaan databaseka aado oo aan data soo akhriyo waxaan leenahay choose the data source kadibna waxaan leenahay new data source data sourcegaaga markaad doorato waxaan u baahnaa SQL database yes magaca sidiisa ku dhaaf faraha ka qaad connection sameey waxaan leenahay new connection SQL server maadaama SQL server haddii aad Oracle isticmaalayso aad dooranaysaa hadda waxaan u baahnaa SQL server kadibna waxaan leenahay continue SQL serverka connection namekiisa dooro connection namekiisa waa degani magacaas uu leeyahay magaca serverka ku qoran aaway xaggaana imaanaysaa inta ka soo koobiyay magacana soo koobiyay waxaa laga yaabaa hebel/SQL Express inay ku qoranta adiga ka soco kadibna database-da inta ku soo gali doona database-kana maxaa loo yaqaanaa online banking soma nooga door kadibna notice degree connection kana yes test the connection
yes connection succeeded waa lagu guulaystay kadib waxaan leenahay okay inta waxaa ku imaan doona connection stringiga oo dhammaystiran haddii aan jack saaro waxaa lii samayn doonaa connectionkan next connectionkan ma ogashaa in lagugu save gareeyo web.configurationkaaga ma ogashaa application configuration fileka in lagugu save gareeyo raalli ma ka tahay oo meeshan ah haa waan ogolahay magaca doon u baxsan waxaan u baxsanaynaa connect magacaas aan u baxsanayaa kadib waxaan leenahay next tableka aad rabto inaad ku xirmato kee waaye hal table aad haysanaa soo ma hal table haysanaa tableska inta kasoo bixi doonaan store procedure ku xirmayso waa kasoo baxayaa haddii aad rabto query aran garan kartaa hadda hal table aan noo samaysan tablekeena maxaa loo yaqaanaa useries wax kale ma noo samaysan all columns star xidig waa mujida select star from the useries kadibna waxaan leenahay next test the query information kana la soo ran garan waxba nooguma jiraan hadda waxba nooguma jiraan bal hal column aan soo gelinay table right click and edit top 200 rows one row aan soo gelinayna hal qof ID isaga iswadi doono soo ma Mohamed Abdi Ali admin.com passwordka admin123 user tabkana waa admin one person ayaa xariisan haddii aan kan kusoo laabto oo aan dhaho test the query maxaa ayaa xariisan one person kadib waxaan leenahay finish meeshan waxaa lagu soo aqriyay datadii databaseka lagu soo aqrinay haddii aad kusoo laabato web.configurationkaaga connectionkaaga ku samaysan this is your connection string waa lagu sameeyey wado dheer adoo soo marin oo aadan qorin ayaa connectionkaaga lagu diyaariyey waayahay userkeenan haddii aan imaano meeshaan data noogu jirta hadda data ayaa noogu jirta haddii aan save dhahno oo aan refresh garayno pagekeenan halkaas qofaa noola soo aqrin doonaa meeshan one person ayaa meeshaan oo lagu soo aqrin doonaa yes ma qurux badna aan qurxinna marka style sheet ayaa qurxinaya waxaad imaanaysaa isla meeshan that grid view-gana waxaan baxsanaynaa that grid view maybe useries kadibna waxaan leenahay grid line iskan ku jira ka saar horta waxaan ku qoran ka tirtir grid line is equal to the none kadibna waxaan leenahay css is equal to table ha laga dhigo siduu noqon doonaa table ha laga dhigo digida width and height uu yeelan doonaa kadibna information noocaan oo kale ayuu noqon doonaa tablekeyga waxaan u samayn doonaa border waxaan leenahay table dash border table border leh oo aad u muuqanaya yes haddii aad soo yarayso responsive waaye something like this asagana uu soo yaraanaya haddii aad weynaysana wuu weynaanayaa as mobile devices waayahay daatadeen waa noola soo akhriyay bal qof cusub aan xareyno kadibna aan aragno qofkaas in la soo akhriyay in kale barankan save marka lagu dhufto waxaan rabnaa in information noola xareeyo isla meeshan uu nooga soo muuqdo waxaa noo sameyn store procedure noo sameynaa insertion isla asagaan isticmaali doonaa sidoo kale waxaa noo sameysan connection ayaa noo sameysan connectionkeygan waxaa rabaa inaan kan kusoo xirto connectionkeyga waa SQL Oracle maaha MySQL maaha waa SQL connection soo ma marka ugu horeysa waxaan soo import garaysanaynaa waxa loo yaqaano namespaces si connectionska ay ugu shaqaan system.data.sql client laba waxaan soo import garaysanaynaa system.configuration maadaama connectionkeyga uu configuration yahay oo xaggaas laga soo akhrinayo formkeyga pagekeyga markuu soo kacayo waxaan rabaa in snot post baagiisa uu falseeyo pagekeyga mar alla markuu soo kacayo daatada ku jirta la soo akhriyo connectionkeena aan samaysano marka connectionkeena sidee loo sameeyaa waxaan leenahay using con as SQL connection as new SQL connection SQL connectionkeyga xaggee laga soo aqrin doonaa configuration manager web.configurationkeyga .connection string keyga maxaa u baxshay connect aan u bixina soo meen .connection string this is my connection had database-keyga waa ku xiranaya insertion aan samayn karaa update aan samayn karaa delete ayaan samayn karaa
meeshaan waxaan ku samaysanaynaa marka SQL commands SQL read